musiibadii libaax badeedyada ee ka dhacday jasiirad ku taalla dalka Australia. Jasiiradda lagu magacaabo Tasmania waxay ku taallaa waddanka Australia. Waxa ka dhacay arrin la yaab iyo fajac leh kadib markii si lama filaan ah ay xeebta ugu soo baxeen libaaxyo tiradooda gaaraysa 380 libaax badeed. kooxaha gargaarka oo gaaraya ilaa 60 qof oo wata doomaha dheereeya ayaa waxay isku dayeen in ay dib ugu soo celiyaan badweynta si ay u badbaadiyaan libaaxyadaasi, balse nasiib darase kuma aysan guulaysan. waxay kaliya awoodeen 30 ka mid ah, intii kalese waxa ay ku nafbaxeen xeebta banaankeeda. macadda waxa ku kalifay raxanta libaax badeed in uu socodkooda ku soo beegmo dhanka xeebta, balse qubaradu waxay sheegeen in ay macquul tahay in hogaamiyaha kooxda uu qalad sameeyay isla markaana dhammaantooda u horseeday meel qaldan.